عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا صاحبيال waxaan rajaynaynaa caafimaad qabtiin dhammaantiinba. ku soo dhawaada janaalkeena Fasoon iyo muuqaalkeena maanta. muuqaalkeena waxa uu hadli doonaa qisada saxda ah ee filimka 172 Days oo daafaha caalamka qabsaday. haddaba maxay tahay qisada aadan ogeyn ee 172 Days filimka? halkay ka dhacday qisada filimka? waa kuma qofka qisada qoray oo si dhab ah ugu dhacday? intaas in kale waxaan ugu hadli doonaa muuqaalkeena maanta. intaana bilaabin qisada filimka 172 Days waxaa ka codsanayaa haddaad tahay saaxiib nagu cusub inaad janaalka subscribe inoo saarto, muuqaalkan inoo laagareyso si saaxiibo badan oo jecel qisada filmaanta u gaaro, lana wadaagta asxaabtaada kale. wixii tale iyo fikirana nagu wadaag qaybta faalada ama commentiska. mahadsanidin. aan gudagalna qisada filimka 172 Days. qisada filimka waa qiso dhab ah oo ka dhacday dalka Indonesia sanadkii 2021. waxa ay ku dhacday gabar lagu magacaabo Nasira Shafa oo u dhalatay dalka Indonesia. kadib markay qisada ku dhacday ayay waxa ay go'aansatay inay sheekadeeda adduunka la wadaagto, oo waxa ay ka qortay book novel ah kaas oo ay ku sheegtay qisada qabsatay. qisada buuggu waxa ay ku bilowday inay u duceyso saygeedii oo lagu magacaabayay Amir. sanadkii 2021 bishii February ayay qisadan bilaabatay iyada oo college dhiganayso, weliba 21 sano jir ah. kadib markii aalada internetka gaar ahaan barteeda Instagramka ku wada saaxiibeen wiil la yiraahdo Amir, kaas oo barteeda Instagramka follow soo dhahay, kadibna ay follow back dhaaday, kadibna ay ku wada sheekaysteen muddo maalmo ah. iyadoo college-ka maalin maalmaha ka mid ah iyadoo college-ka ka soo baxaysa ayaa waxa u yimid Amir iyo saaxiibkiis oo wada socdo. kadibna waxa uu weydiistay, waxaan rabaa in ay qorti nambarka hooyo. anna nambarkii hooyo ayaa markii siiyey. maalmo kadib ayuu ila soo xiriiray hooyaday, wuxuuna ku dhahay, waxa aan rabaa in aan guursado gabadhiina. familkiina arrintii way ku farxeen, balse anigu ma ahayn qof ku farxay. Nasira iyada oo ka sheekeynayso ayaa waxa ay dhahday, habeen ayuu dhahay, waxa aan rabaa inaan gurigiina imaado oo aan shaax ka soo cabo. anna waan aamin waaye, balse maalintii xigtay ayaa hooyaday waxa ay ugu dhahday, waxaa imaanayo Amir iyo familkiisa. markaas sidaas ay tiri. sidoo kale waxa ay sheegtay in aan dhar fiican xirto, gacmahana sigsaan gashto, waayo familku waa famil ahludiin ah. markay ay imaadeen Amir iyo familkiisa kadib, Amir ayaa wuxuu ugu dhahay, waxaan rabaa inaan ku guursado, balse anigu waan ka diiday xilligaas, waayo waxa aan jiray 21 sano. balse walaashay iga weyn ayaa waxay ugu dhahday, abaayo waa inaad iska guursataa ninkani, waayo waxaa laga yaabaa inuu yahay hadiyad uu Alle ku siiyey. anna sidaas ayaan ku aqbalay guurkii 10 Juun 2021. maxaa dhacay guurka kadib? sidee noqotay nolosha Nasira? Amir ma noqday sida ay walaasheed u sheegtay? haddaba muuqaalka haddaadan laag saarin fadlan hadda saar, waa mahadsan tahay. Amir markuu guursaday Nasira waxa uu siiyey wax kasto: jacayl, naxariis, kaftan iyo inuu markasta ka qoslisiyo. waxa ay sheegtay in markasta meel walba ay isku raaci jireen, supermarketka, xeebaha, maqaayadaha. iyadoo uu ka sheekeynayso waxa markasta Amir joogtayn jiray. waxa ay dhahday, wax uu ahaa qof markasta salaad tukado, xitaa habeenkii isoo kicin jiray salaada. anna xilligaas waxa aan dhihi jiray waan hurdayaa. xitaa waxyaalaha aad guliya waxay ahayd, waxa ay dhahday, markuu kicinayo hurdada cod hoose ayuu wuxuu igu dhahay, kaale waan tukanaynaa, soo kac, Allah ayaan baryaynaa. balse xilligaas ani hurdada ayaan iska sii wadan jiray, balse Amir keligiis ayaa tukan jiray. subaxyadii ka mid ah ayaa aniga kiciyey oo aan ku dhahay, soo kac, waan tukanaynaa. markuu i arkay ayuu aad ugu farxay. xilligii aan qaaday uurkii ugu horeeyey ayaa 2 isbuuc aniga oo uur leh ilmihii iga soo dilmeen, waxaana ka qaaday stress, waayo xanuunka cunuga iga dilmay. sida oo kale jaamacaddii semester 5kii ayaa assignment badan liiga rabay, waxaan sameeyay aqoon waaye. balse Amir waxa uu dhahay, mar kale uur waa qaadee, hooyo waa noqonee, anna aabo waa noqonayaa, ee naftaada ha dulminin. aad ayaa ula yaabay. muddo 4 bil innaga oo wada joogno ayuu wuxuu hadiyad iiga dhigay guri aan aniga leeyahay oo magacayga ku saxiixay. balse arrintaas iyo hadiyadaasna aad ayaa ugu farxay. anigoo iska faraxsan, weliba aan dareemayno nolol fiican
ayaa maxaa ku soo booday xanuun ku bilowday qufac. kadib isbitaalku waxa uu ku jiray muddo 3 maalin ah. waxaa soo noqonay gurigii, balse usbuuc kadib xanuunkii ayaa saa'id noqday. dhakhtarkii ayaa wuxuu celinay, waxa uu inoo sheegay in xanuunku yahay mid sanbabaha ah uuna u baahan yahay in muddo 3 maalin ah isbitaalka joogo. anna waxaan ahaa qof aan isbitaalka ka tegin. intaas kadib waxaa dib ugu soo noqonay gurigii, balse xanuunkii ayaa noqday weliba mid saa'id ah. waxaan ku celinay isbitaalkii waadanayo inaysan waxba u taraynin, maxaa yeelay xanuunkii sanbabkii wuu ka gudbay, waxa uu gudbay beerkii. sidaas ay tahay inuu noolaado rajadiisa waa 10%. xilligaas Nadiira way aqbali weysay in maxaa lahaa inuu ka geeriyoonayo ama uu ka dhimanayo Caamir. waxa ay isku dayday in wax kasta ay samayso, balse ugu dambeyntii 29 November ayaa waxa uu imaatay geeridii. xilligaasna Nadiira isbitaalka ayay kula joogtay, way aqbali weysay in maxaa la dhahaa uu Caamir uu geeriyooday, ilaa ugu dambeyntii la soo aasay. haddaba maxaa ku qasbay in sheekada 172 maalmood ee ciwaan uu dhigto? waxay go'aansatay wanaagii, ixtiraamkii, xushmadii, naxariistii, wax kasta oo Caamir siiyey oo wanaag ahaa inuusan noqonin qof dunida ka geeriyoodo. oo hadafkeedu wuxuu ahaa in daafaha caalamka uu gaaro magaca Caamir. oo samaysay ee go'aansatay in ay sheeko ahaan u qorto sheekadaasna ee uu ciwaan uga dhigto 172 maalmood. 172daasna waa intii ay wada noolaayeen ee wada jir ahaayeen. kadib markii ay sheekadii u qortay, sheekadii dad badan ay ka heleen, ayaa waxay raadisay qolo filim ahaan u turjunto. ay riyadeedii xigta ay ka dhigatay, ilaa ugu dambeyntii ay heshay shirkad oo dhaaday filim ayaa kaaga samaynaynaa qisadii. qisada filimka waxaa directorka filimka ka noqday haweeney oo lagu magacaabo Masris Hadra ayaa waxay ka noqotay filimka directorka. balse filimka 172 maalmood wax kasto hadday noqon lahayd guriga, hadday noqon lahayd dariska, hadday noqon lahayd qaabka nool yahay, wax kasto waxaa lagu besgareeyey qisada Nadiira iyo Caamir. xitaa directorada waxay rabeen in magaca oo atooraha magac kale loo dhiibo, balse Nadiira ayaa waxay go'aansatay in directorka ay u sheegtay dhaaday magaca filimka waa in actorka loogu magacaabo Caamir. maxaa filimkaas oo u gaar ah ee ku jiray sheekada Nadiira Sira, ama muuqaal ahaan ay intay ka soo muuqatay Nadiira Sira? waxaa ku jirtay 2 muuqaal oo Nadiira Sira ee si sax ah filimka uga soo muuqatay. waa muuqaalka arooska iyo muuqaalka markii isbitaalka oo uu dhimanayo Caamir. labadaasba waa 2 muuqaal ee iyada ka soo muuqanayso, halka muuqaalada kale ee filimka jilayaan actorka Brain oo filimka ku jilaya Caamir iyo actarada filimka Yasmiin oo ku madilaysay Nadiira Sira. labadaas qof ayaa ah 2 qofood oo filimka matalaya intiisa kale. haddaba maxay tahay qisada gaarka ah ee filimkan atooraha iyo actarada ay ka qabsatay? filimka markii la qoray screenkiisii oo loo tusay actorka Brain, waa ay ku adkaatay inuu filimkan aqbalo ama doorkan uu jilo. maxaa yeelay wuxuu dhahay doorkan maahan mid aan samayn karo. balse ugu dambeyntii ilaa iyo Nadiira Sira ee ugu imaatay ay ku dhahday iijil filimka qaybtaani waa samayn kartaa, nolosheedii wax kasta ay ugu sheekaysay. sidaasna waa uu ku aqbalay, sidaas ayuu ku jilay. filimkani waa filim marka laga sameeyey qisas sax ah oo dhab ah oona ku dhacday Nadiira Sira. filimka horne wuxuu ahaa sheeko, sheekadani waxaa qortay Nadiira Sira oo ah qofka nolosha la wadaagtay Caamir. haddaba ugu dambeyntiina filimkii wuxuu noqday filim caalamka gaaray, adduunyada dhan laga wada daawaday, loogu magac daray intii ay wada noolaayeen 172 maalmood.